أنا قولها شعب كايا اسمه من حارتن tababarka booliska ee Janarkahiya uu ka furmay kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka kaas oo sida dhigaya dastuurka meelgaarka ah u furo madaxweynaha dalka oo qayb ka ah madaxweynaha oo la hadlay mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay ku jirto arrinta ammaanka uu sheegay in dawladdu ay siisay ahmiyad gaar ah iyo baahida loo qabo meelmarinta shuruuc uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka argagixisada iyo kan xasiinta ciidanka dawladda waxaan sidaan horay ugu ballan qaaday oo naga go'an inaan siino amniga ahmiyad amnigu siyaasad ma galo qofka oo muwaadin ah door ayuu ka leeyahay inta rabto Allah inaha hirgelinta sharciyada labadii sano ee maamulkeedu jiray waxaan saxiixay laba sharci halka 29 sharciyo oo kale hor yaalaan labada gole ee baarlamaanka in ka badan وكمل شروع راسي وحي مهم ويجي الجلسة حولها دولة سنة مديالة كمترسلة مديالة كمتماسقة شرع الإمام الإسلامية لحقين تحرير مدى وآدي مهم وواء في أسحاوي وحي مدلة لبدا قولة وقع صرينا إنا يددجيان في الجلسة هي أنسحيتها شرعية إلها عياد سنة من الشخيشة دولة الخبرات ونكسنا يمرسوا عن أوصاحة القارئ ورحمة الله دولة الصومالية والصومالي الله من الشيء إني كبرا لغمر الدليل وحال ووضعا إنا كمر دليله ولحظ الله ماملك صومالي لأن سيدي دولة الخبرات أي صومالي في حوارة loogu helo dalkooyinka walaalaheen Soomaaliland waa dad walaalaheen aan jecelnahay oo aynan kala maarmin waxaan ku bixinaynaa dadaal beeriya midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si aan uga baxno dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku jirto waxaan u diyaarnahay inaan si waafi ah uga garawno kabashooyinkooda walaalaheenna ee Soomaaliland siyaasadda arrimaha dowladda iyo horumarka Farmaajo waxa uu sheegay in dalalka caalamka kuwa jirta Soomaaliya ay la wadaago xiriirka uu yahay mid ku qoto xiriirkooda iskaashi iyo wadaag waxa uu sheegay in marka laga hadlayo tageeraha badaha iyo dhulaha Soomaaliya ay tahay mid aan dowladda laga jiri karin siyaasaddeena arrimaha dibadda waxaa saldhig u ah in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamka iyadoo iskaashigeedu ku qotabo ilaalinta waxa ugu horeeya iyo waxa ku xiga iyo waxa saddexaad ay tahay danaha qaranka Soomaaliyeed aysan waxna ka hooseyn waxna ka dambeeyay waxaan shacabka Soomaaliyeed aan xaqiijinayaa inaan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimada madaxbannaanideena iyo ilaalinteena hidaheena dhulka badda iyo cirka هذا القاعدة من الحلول يتبدأ من Farmaajo ayaa si aad ah loogu dhadhasan karay ahmiyadda ay ku leedahay dowladda amniga waxaana maamulka hore